qaar ka mid ah ehelada maxaabiista ku xidhan Somaliland ayaa magaalada Laascaanood sida fiinta uga qayliyay. waynu arki doonaa waxyaabaha ay ka cabanayaan dadkaasi iyo eedda ay dusha ka saareen maamulka magaalada Laascaanood sida ay sheegeen carruurtii iyo qoysaskii ay nimanka maxaabiista ay ka xidhnaayeen dayaca iyo daryeel la'aanta soo gaadhay iyo weliba iyaga laftarkooda la caburinayo oo loo diidan yahay inay ka hadlaan waxay u baahan yihiin maxaabiistooda iyo sida aan marnaba loogu ogolayn tallaabo kasta oo ay doonayeen in maxaabiistoodii loogu soo daayo ama dee dadkii waxa weeye ay ka maqnaayeen nimanka maxaabiista ahi loogu soo daayo. kaasi waa qodob. waxaynu kale oo isla barnaamijkan ku eegi doonaa dhacdo aad u fool xun oo iyaduna ka dhacday inta u dhaxaysa Boqorkayn iyo Yeyle. waxaan intii waxa weeye colaadi dhex maraysay dadka deegaanada hore u dhicin laakiin maanta kow ah. waa lama arag waana laba maqal. islaan ama hooyo ka mid ah hooyooyinka deegaanka ayaa lagu dilay halkaas iyadoo dee aana qabiil loo dilay. tanoo kale deegaanka hore uguma dhicin. bal qodobkaasna waynu eegi doonaa. muuqaalka shargare wixii aragteena commentiga nagula wada. bismillaahi raxmaani raxiim. soo dhowaada. sida aad halkan ka arkaysaan maxaabiista ku xidhan jeelasha kala duwan ee Somaliland ee ka soo jeeda magaalada Laascaanood waxay ka yimaadeen carruur, xaasas, ehelo kale oo ayagu markaa u ahaayeen indho u ahaayeen oo hadday noqoto caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo daryeelkooda iyo noloshoodaba ay mas-uul ka ahaayeen. kadib markii ay maxaabiistaasi xorriyadoodii ku waayeen dagaaladii ka dhacay magaalada Laascaanood ehelkoodii iyo awlaaddoodii may helin cid dambe oo daryeesha. ninkaasi wuxuu markaa ku qasban yahay isaga iyo eheladiisuba inay dareemaan muxuu ahaa waxa loo dagaalamayay, maxay u raadinayeen. maanta waxa weeye ninka aan carruurtiisu daryeel haysan ee isagiina waxa weeye u xidhan colaad iyo dagaal sabab allaale iyo sabab uu maanta waxa weeye niyad samaadaa ma jirto. waa hubaal isagu halkan uu ku xidhan yahay wax dhiba kala kulmi maayo insha allahu bismillaahi kariim. laakiin waxa warwarka ugu badan ee uu ka hayaa ee uu habeen iyo maalinba ka seexan laayahay waa wararka aan wanaagsanayn ee uga imanaya gurigii uu ka yimi. aad iyo aad baan uga xumahay. horta aynu soo qaadano qaar ka mid ah eheladaas iyo qaabka ay uga hadleen. أنا دعك كرتين سومالان يا وقوي برا سقون صدام. wax suurtagal maaha lagama suurowdo. marka waxaad aragtaa waxaan shardi aan suuragal ahayn. waxaan shardi aan suurtagal ahayn baan arkaa. waxaan ahay Sahra Maxamed Guuleed oo ka hadlaysa Laascaanood oo u cabanaysa oo dhashay wiil burco ku xidhan oo buka. wiilkaas oo la yiraahdo Axmed Maxamed Saciid Guuleed. Faarax Maxamed Almar oo walaalkaya walaalaan nahay. صقدرية جامعة محبوسة وكحرة نرجسة محبوس كانوا الله ولكن محاش بالجامعة أنا إبراهيم شبي الجامعة ولا محبوس كانوا الله محمود جامعة ولا وكحرة برع محبيس الغبطي محبوس كانوا الله عد فتح محل عبدي ولكن هو يانا حق كلام المدار بامكنا حلقوا قبتي دجال كان عن مجال الأسعانو raggan oo tiradoodu gaadhayso 108 maxbuus kana soo wada jeeda dawladda waqooyi bari. waayahay dadkani kaliya kama cabanayaan inaan la daryeelin ubadkii iyo qoysaskii ay nimankaasi ka xidhnaayeen ee waxa kaloo caqabad weynba ku ah cidda ka hadasha in iyaga laftarkooda xabsiga loo taxaabay. sidee baad uga hadashaa oo aad u tidhaahdaa waxa baahan carruurtii iyo ehelkii maxaabiistaas xidhan
ma odhan kartid waxa amar dulligay maamulka laascaanood waxay markaa faafinayaan oo ay leeyihiin arrintan ama qorshahan waxa wata dad doonaya inay Somaliland dib ugu noqdaan ama waa arrin siyaasadaysan subhanallah war maxaa siyaasadaysan ma waxa siyaasadaysan ilmaha yar ee aabihii ama adeerkii xidhan yahay ee u baahan daryeelkii waalidnimo ee u baahan waxa weeye haddii laba ku roon yahay qofkii noloshiisu ay ilaahay ka soo ku tiirsanayd ma hooyada waxa weeye dhibka qabta ee intaas soo sar waxa weeye qofkeedii ka xidhnaa ee aanad biil iyo masaariif midna aanad siinaynin ee markii horena waxa weeye aad dabka faraha u gelisay ayaad maantana aad inaad xarig ugu darto ma taasaa waxa weeye haddii laba ku roon arrin siyaasadeed ma taasaa ilaah baan kugu dhaarshay waxa weeye wax qof lagu xidho ama lagu ereedo aad baan uga xumahay dadkaas waxa weeye hadlay halkaas ka hadlay waxaan rajaynayaa in la tixgeliyo hadalkooda xitaa haddii aanay ogolayn maamulka laascaanood in la isdhaafsado maxaabiista oo la wada hadlo war dadkan waxa weeye ra'yigooda cabiraya haddii laba ku roon yahay aad khaladeen waxa weeye waalidiintood iyo raggii waxa weeye qoysaskooda mas'uulka ka ahaa wax tara oo carruurta wax u tara oo dadka ehelka wax u tara arrintaas uma eka arrin halkaa ku istaagaysa waxay u muuqataa arrin heerkeedu sarreeyo ama ay uga hadleen dad badan oo ka mid ah mudanta laascaanood si qiimo leh waxaana laga yaabaa in ololaha maxaabiista arrintooda lagaga hadlaya uu kor u sii kaco waxayna odhan karnaa taasi waa fursad soo dhoweyn karta inay dadku si furan u wada hadlaan arrinta maxaabiista laga wada hadlo la isdhaafsado maxaabiista nabadgelya ay ka dhalato idamka ilaahay ayaan halkaa ka rajaynaya qodobka labaad ee aynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa waa dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aynan nooceeda hore u arag oo ka dhacday agagaarka boqodharkayn laba nin oo hubaysan ayaa soo gaada tegey labadaa nin weligeed bay dhici jirtay in meelaha ay xaalada colaad ku jiraan la gaado tago oo raggu ay gaado tagaan labadaa nin waxay ka yimaadeen dhinacaas yeyle waxay dileen islaan hooyo ah oo da ah oo gurigeedii joogta ayay si xun oo arixan darro ah nimankaasi u dileen lagama hadal islaantaas oo dhacdadaa foosha xun waxay ahayd inay dhaqan iyo siyaasi iyo bulshada qaybaheeda kala duwani ay aada uga dhiidhiyaan maadaama ay ka duwan tahay dhacdooyinkii lagu yaqaanay colaadaha beelaha dhex mara oo aan la taaban jirin birmageydada walow ay horeba u dhacday in carruur la laayay haddana tani waa mid ugubka ah mar haddii waxa weeye la bixin waayey oo la laayay birmageydadii hooyooyinkii waa arrin aad iyo aad u fool xun waxaana jeclaan lahaa in cod dheer arrintaas lagaga hadlo oo haddii laba ku run yahay si aanay arrinta noocaasi u fidin oo aanay dad kale u beegsan birmageydada waa in si weyn looga dhidhiyaa arrintaasaan soo jeedinayaa sida ay sheegayaan labadan nin waxay u socdeen laba nin oo dhowaan la sheegay in qorri udugu qabtay labadaa nin waxaa loo soo dhaadhiciyey xabsiga loo soo dhaadhiciyey oo maxaabiista ka mid yihiin laba nin oo ciidana bay ahayn labadaa nin oo hubaysan sida la sheegay waxay ka soo jeedeen beesha gabooye kuwan hadda waxa weeye waxgeystayna sida ay xaqiijiyeen ilo xogogaal ah oo dhinacaas iyo deegaanada laascaanood ka imanaya waa laba nin oo ay isku hayb yihiin nimanka hore loogu qabtay qorlugud hadda garaan nimankaa lama dilin waa la qabtay un maxaabiista ku mid yihiin way nool yihiin nimankan markaa falka noocana geystay waxay ku hayb yihiin ama la hayb yihiin ilaahay baa inagu ogay sida ay sheegeen dadkii waxa weeye dee
ay dib ugu laabteen markii ay dilka geysteen in nimankaasi ay ka soo jeedeen beesha gabooye hadda haddii waxa weeye labada nin ee la hayee maxaabiista la dili lahaa in uunbaa waxa weeye la odhan lahaa nimankaasi dee waa in uunbaa inkastoo waxa weye qof aan waxba geysan mar walba dilkiisu uu yahay dee dembi dhekada kuu saaran haddana nimanka wax ka maqani ma jiro dilka foosha xun ee noocaasa ee birmageydada ah ay u geysteen ma jiro dhanka kale waxaa la sheegayaa inuu jiro geel laga soo dhacay dhinacaas iyo beesha laascaanood ama beesha dhulbahante oo ay soo dhaceen niman habar jeclo ah way dhacdaa marar badan in geela lasoo kala dhaco waa si la celiyaa oo dadka waxa weeye mas-uuliyiinta markuu gacantooda soo gaadho tuug meel walba uu joogaa waa la celiyaa oo xoolaha waa la isu celiyaa marar badan bay dhacday xoolo lasoo dhacay oo la celiyey laakiin tan dilka birmageydada ahi waa arrin cusub halka ay ku dambaysaynu eegaynaa khayr allaha ka dhigo fogeeyo muuqaal